دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، نهر يسقي دنيانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، دين الإسلام سلام، يوصلنا إلى مرسانا. دين الإسلام سلام، دين الإسلام. ay runtii sida Soomaali lagu yaqaan qof walba meesha uu joogo inuu jecel yahay dadka in uu diinta ugu yeero oo aynu nahay ducaatun ila Allah oo taariikhda horan ay saa sheegayso oo geeskan Afrika iyo inaan diinta gaarsiin jirnay oo saas dad badan ay ku soo islaami jireen dhibaatadii nagu dhacday iyo socodkeennii oo xadidmay ayaa laga yaabaa inuu joojiyay soo gelitaankii dad badan islaamka ay soo gelaayeen waxaan hadda muuqata inaan soo ceshanayno عافيتني يدورك أن كل هاي فافين الدين الإسلام كا ويلكن دلني رضا وحكس أودا شوطنا كيوغاندا وحول الشقيا نمان كان سومالي رياشان تاريخ دي أي سومرين إيو فافهنتي إيو جعيل كإسلام كا إيو سيء شرحين مركي لسه وداعين أو كوكان عاي أيا إن مساعد كلا كانوا أو توحيدكم أيوة ويقول باللعبين أو يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله يسلم كل قصة قال الشرحات هيك صوصيا لكن سجود أو إن مساعد كجامعة على السوي مادة أو مسلمين تو أي وذوقاذان أرين تاسي فرحات أي نوتها أو بني آدم كأردن حنجعلنا هاي إن الإسلام كسوق قلان سي نار وجبت باذان على دين الإسلام كو ودين شامل وإلهي وكتاب كان أسود جي كتبدي كوري أردن والرومينا يا usuushii ku jirtay oo dhan uu sheegaya rususha Ilaahay in la wada rumeeyo uu sheegaya halka diimo kale ay ka yihiin goos oo ay qaybna rumeynayaan qaybna ay diidayaan marka qofkii qayb kali ah rumeeyo oo qayb diida jannana ma galaayo mu'minna ma noqonayo mu'min waxa lagu noqdaa in kutubtii Ilaahay oo dhan iyo rususha Ilaahay oo dhan la wada rumeeyo qulu aamanna billahi وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا سياس شامل كأه قفنا لقيتي رسوشي هوري ونبي عيسى للرمينايو ونبي موسى للرمينايو ونبي إبراهيم للرمينايو ورسوشي أردن لا نفرق بين أحد من رسله sidaas ay muslimiintu ay hayaan marka dadka yaani muslimiinta u maleynaya inay fi'a gaar ay yihiin oo sida diimaha kale ee gaargaarka ah ee yiri nu'minu bima unzila alayna wa yakfuruna bima wara'ahu islaamku saas ma aha islaamku waa diimihii oo dhan oo la isku wada daray iyo rusushoodii oo dhan oo la wada rumeeyo maxaa yeelay rususha Ilaahay hal tawxiid ay la wada imaadeen walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah marka alfaad waxa jirta marka qofka islaamku markuu soo galaayo loo qabto oo gaar ahaan dadka midalan hore u rumaysnaa masiixiyada oo ayada oo qaybaan rumaynayna qaybna waan ka tageynaa kuwa nabi ciise bis ku ekeystay inagu inaan marka nabiyada oo dhan wada rumaynayno cadeynayso iyo sida nabi ciise u haystaan inuu ama wiil ilaahay yahay ama isaga ilaahay inuu yahay in sidaas ka duwan loogu sheego oo la yiraahdo nabi ciise xaqiiqadiisu sida uu ahaa inuu yahay adoon ilaahay rasuul ilaahay kalimad ilaahay oo ilaahay uu ku abuuray maryama caloosheeda oo مثال لو قلت لك ذاتك أود إله إن لجبره إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون مركا مجعي شهر وحليج روبت وإسكب بدله لأننا يا مركا أشياء مجعيد أنبياء إلهي مجعيد يا الله بحسدا وإسرقرتين وحي أبحيان أصلا وقال هذا عيسى اللي يراهدو مركا إنك بصومالي أنا مجعاه دي لك وبدن أو عيسى اللي يراهدو إنه جيران نبي عيسى وابا نبي جانيو inay gaaladu maxay ahayd ay qaqaateen oo inay dadka ka xigaan iska dhigayaan yaan loo malayn ayaga ay leeyihiin yaani inaga ayaa ka xigna nabi ciise jidkiisa ku taagan oo yaxii uu leeyimid haysana marka sidaas ayaa marka aan tawxiidku u qabanaynaa kadibna khudbadii ayaan isu diyaarinaynaa marka taas waxayna tusaysaa duruufta muslimiintu ay ku jiraan si kasoo u adag tahay hadana diinta ugu badan ee ay dadku soo galaan waa islaamka sababtuna waxay tahay waa fitratullahi allati fatara an-nas 'alayha كل مولود يولد على الفطرة قف كسول دلايو إسلامي ما لقول دلا وحتى ذاتك عن مسلم كأهين عرور طاضو ومسلمين إلى أنت يكقان جاران أيوة أي كدورتان إن يودد كلا قادان أنت كهر رئيس دي جيريودانا جنة دي جلايانا وتحديث كأتكون النبي إبراهيم
caruur yar yar oo uu jannada yani uu ku hayay habeenka nabiga la dheelmiyey oo loo soo sheegay oo ah inay yihiin caruurtaasi ayagoo yar yar dhintay oo ka soo jeeda meelahaas kale marka fitrada saliimka ayuu islaamku yahay saasa marka masaajidku waxay u soo jecleyseen inay keenaan inay la wadaagaan tawxiidka loo qabto intaanoo muslimiinta marxaati ay ka noqdaan farxad ay u noqoto haddiina loo maleynaya inaan jabnay oo islaamkeennii uu daciifay oo saasay tahay si kasta oo aan u tabardarannahay haddana ra'sumaalka ugu weyn aan haysanno waa islaamnimada taasaan sii wadaynaa oo aan ku dhimanaynaa ilaa an nalqa allaha subxaana wa tacaala ilaa ilahan kala kulanno ina allaha astafaa lakum addiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ilaahay diin ayuu idiin dooray oo islaamnimada ah sidaa aan ku geeriyoodo oo haysta ilaad ka dhimataan ayaa la yidhi marka insha allah taala kelimooyinkii tawxiidka ayaa uu iga daba dhahayaa marka u fasaxaad ila kelimooyinkaas inuu iga daba dhaho ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa anna ciisa عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأشهد أن الجنة حق وأن النار حق وأن الله يبعث من في القبور الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي أنقذه من النار إلهي يا ما إسكالا نار كبت باذيي لأن قفكم مركو قال لما كنت انتو نار أن ولقت دمان أيو كجرايا مركو صاء إسلامه أو إلهي دينته وافجيه أو أساس كو خاتمة السنة janno uusan weligeed dhimanaynin oon dhammaanin ayuu ku jiraa bini aadamka oo dhan waxaan la jecelnahay marka inay naartaas ka badbaadaan maxaa wax loo adkeysan kara ma aha waxaan jecelnahay dhammaantood inay islaamnimada galaan oo sida xaqa ah ay saa u soo galaan si ay naar uga badbaadaan marka aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin kelimo yar oo bal taariikhda is soo mareen iyo waxay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نركم هذا إلهي وكل توفيقي وكل جن مرقاتي كوضن هاي لما كن لحية طبنكي ونوجي من ودنك يوغندا أنا جا وحنا نادي قال من اللي يراهدو وكتر سنادي هذا ودنك ومعلم كان سبورتس سبورتس كده ده وحلاقيه باين وهستان يعني حيابك عليه لكن دين تنوع وهذا اللي كنا كشقيان بركة waxaan kula talinay wax badan inuu islaamka qaato oo maaragtay nala mid noqdo diinta islaamka qaato runtii waxa waa fiican tahay laakiin waxay ku fiican tahay inay aniga iga timaado aniga nafsadeyda inay ka timaado oo aan anigu aqbalo waana ka fikiraa waa naga tagay wuxuu aaday wadankiisii laba bilood markuu maqnaay oo aan isla xiriirino wuxuu ugu yiri Cabdullaahi arrintii waxaan rabaa inaan maaragtay aan hawshi iyada ahayd xogaa waa isoo karkaray waxaan dareemaa inaan xagga islaamka u socdo waa fiican tahay inay ka soo fikir haddaad meeshaada aad ku islaambeena waa okay haddii aad noo imaan kartid oo ay noqoto inaad noo timaadidna markaasaan hawshaas fulinaa inaan imaadaan laga yaabaa hawri sidaasoo noogu yimid hadda wuxuu nala joogaa 3 bilood aan u maraynaa jimco kasta wuxuu dhahayay goorma la geenayaa masjidka goorma masjidka la geenayaa marka runtii waa wax isaga ka yimid cid qasabtay male isaga doortay inuu diinta islaamka qaato annaguna runtii waa aadan ugu faraxnay dhammaanteen ilaahay ajir ha naga siiyo waxaan ilaahay ka rajaynaynaa kuwa asigoo kala ah oo maaragtay meelaha weli aan diinta islaamka qaadan sida sheekhan uu sheegay inay diinta islaamka qaataan taasaan ilaahay ka baryanaa masaajidkan waxaan u dooranaa waa darisanahay waa masaajid runtii aan ugu xiranahay waana runtii maanta farxad weyn inoo tahay saaxiibkeen inuu maanta masaajidka nala joogo oo salaada ilaahay nala ogaayo nalana oogi doona haddii ilaahay inta cimrigiisa ka dhiman waana ku dadaali doonaa inaan si fiican diinta islaamka u barno marka dhinkan taariikhdaas aan soo marnay aad iyo aad u mahadsantihiin culimada iyo asxaabta iyo jamaacada kulligiin waa mahadsantihiin
markhaatigiinana markhaati khayr insha allahu tacaala جزاك الله خير الله اكبر ما شاء الله الله يخليك ما سنتين سو دhoweeya